Muqdisho, magaaladii tasowday ee maatadu lagu xasuuqay. Muqdisho waa magaalo bilic iyo qurux Ilaahay siiyay, xeebtuna ku dhinac taal. Balse mudnaanteedii ahayd in lagu joogo ammaan iyo naruuro iyo naxariis maanay helin. Muqdisho waa muraayadda ummadda Soomaaliyeed ahna bilicda dalka Soomaaliyeed. Muqdisho oo ah magaalo muunad qurxoon, ganacsiga iyo istaraatiijiyadda adduunka ay u leedahay markaad eegto ah goob muhiim ah. haddaan nahay dadkii dhashay lahay dalkan difaaciyo dagaal diyaar baanu nahay. waxaanu duubanahay danteen labada jirkiyo bogtaan daweyn lahaa. Balse Muqdishodii quruxda qabtay waa lagu dhex dagaalamay, dadkeedii ayaa dhiig ku dhex qubay. Dadkii Soomaaliyeed ee u dhashay Muqdisho maanay kala xishoon, marna midna uma uusan diirnixin ka kale. Balse dhegta ayaa dhiigga la isu daray, xabad ayaana la iskula tagay. Muqdisho oo xitaa maalmihii la soo dhaafay laga dareemayay naxariis, ayaa waxaad moodaa in dib mar kale qaraxyadii ay bilowdeen, dhiiggiina uu qubanayo. Taasi oo caadada Muqdisho ahayd mid laga baaqsan karay, loona malaynayay in aanay dib u dhacaynin, ayaa si lama filaan ah mar kale magaalada Muqdisho lagu dhex arkay. Mas'uuliyiintii Muqdisho ka soo qabtay xilalka iyo kuwa hadda ka haya ayaad moodaa in ay u bareerayaan mar kale inuu dhiig ku dhex qubto magaalada Muqdisho. Muqdisho waxaa qabsaday ciidamo laga soo saaray furmihii dagaalka ee ay cadowga ku wajahayeen. Muqdisho dhexdeeda ayaana mas'uuliyiintii kursiga Villa Soomaaliya doonayay midba mid kale wuxuu rabaa inuu ku dilo, ummadda Soomaaliyeed ku laayo, iyagana ay isku adeegsadaan iyaga oo kursi raadinaya. dumarkiyo caruurta danyartiyo miskiinta ma diro anigu ma diro walaalahay ma diro kuwaan dirnaxaynin ee aan damaq lahayn ayaan la dirir oo aan diidanay digaalada dhulkayga anoon ku daabin calan cawaale on dulbaban dangiigsan maya oo gumaysi dooni mayo qabyaala dooran mayo doraad mid baan ahaa dhegowdan baan lahaa dullaaniyo colaad dabbaan laygu shiday. waxaanu doodayaa sadkii la duufsadiyo dibood la maagan yahay lamaaganaa dibood la maagan yahay dariskiyo adduunka intaanu Muqdisho oo maalmihii u dambeeyay ay soo kordhayeen ganacsiyada cusub oo dhalinyarada hanka leh ay soo kordhinayaan, ayaa mar kale muuqda Muqdishaawiyiinta in ay niyad-jab dareemayaan. Dhalinyaradii hanka lahayd ee waan u dhimanayaa, dhiig baan u qubayaa Muqdisho lahaa, maanta waxaad moodaa in fikirkii uu si kale u weecday. Isla dhalinyarada Muqdisho qurxiyay, kuwa dhibka ku barbaaray, kuwa xabadda oo dhacaysa dhashay, ayaa mar kale doonayay inay Muqdisho badbaadiyaan, balse qore ayaa la isugu dhiibay, qabiilna waa la kala dhex dhigay. Mas'uul doonaya inuu kursiga ku fadhiisto ayaa waxaad moodaa in uu isku difaacayo dhalinyarada, gaashaanna uu ka dhiganayo. Muqdishaawiyiinta, da'yarta, dumarka iyo carruurta waxay doonayeen nabad in ay ka helaan Muqdisho, si qurux badan u noolaadaan, weliba ay berisamaadkii iyo waqtigii iyaga aanay arag dib u soo laabto oo ay dareemaan wixii ay dareemeen awoowayaashood iyo aabbayaashood. Muqdisho mar kale waxay martigelinaysaa qalalaaso. Ciidankii dhowaan laga saaray ayaa dusha laga dhigay haddana. Muqdisho ma mudno dhibaato intaasi leeg inay ku dhacdo, ayay leeyihiin dhalinyaradii wax fahmay. Kuwii jaamacadaha ka soo baxay ayaa mar kale qaarna waxay leeyihiin qabyaalada daaya oo qoriga ha qaadina qalinka qaada. qaarna aad moodaa musharrixii
u matalayay ama aan idhaahdee musharaxii doonayay kursiga villa Soomaaliya mar kale inuu galo in iyagu isku difaacayo kaashaana uu ka dhiganayo. Dhibaatada dhacayso kuwa ay ku dhacayaan ma ahan siyaasiyiinta inta badan sida muuqato, balse Muqdisho dhiigga ku qubanaya waa kuwii u dhashay, kuwii u soo dhabar adeegay, kuwii dhibka lagula dhalay dhiigga oo qubanaya. anigu ma dago qarankanaga ma dago dabaabaad hubaysan dabweyn iyo gantaalo nugleerana ka daran oo waan dirirayaa deegaanada dhulkayga anoon ku daabin calan cawaale on dulbaban dangiigsan maya oo gumaysi doori mayo qabyaala dooran mayo. Waxaad moodaa in qof la rumaysto la garan la'yahay midba kan kale ayuu ku tilmaamayaa cadow ka daran argagixisada lala dagaalamayo. Balse markaad eegto midba midka kale qaabka uu u radinayo, wareer ayaa dareemaysaa, qof aad raacda iyo goob aad ku jihaysatana garan maysid. Balse xaqiiqada ayaa waxay tahay mid kasta wuxuu doonayaa kan kale inuu kursiga kaga saaro xabad haddii ay u suuragali lahayd. Balse muddooyinkii la soo dhaafay ayaa madaxweynaha oo sheeganaya tanaasul xaggiisa wuxuu ka laabtay muddo kororsigii 2 sano ahayd. Musharaxiinta kursiga doonaya ama aan idhaahdee musharaxiinta midaysan ee kursiga doonaya ayaa iyana waxay leeyihiin waan tanaasulnay, dhibaatadii ayaan ka tanaasulnay. Waxay ka digayaan mar kale inuusan muddo kororsi dhicin, waxay ka digayaan muddo kororsiga inuusan sharci noqon karin. Balse madaxweynaha ayaa xaggooda ku eedeeyay in ay doonayaan inuu dhiig daato balse aanay nabad doonayn. Isaga madaxweynaha xaggiisa ayaa wuxuu sheeganayaa in ay carqaladaynayaan doorasho dhacdo musharaxiinta midowga. Madaxweynaha ayaa wuxuu ku eedeeyay inay hortaagan yihiin doorasho nooc kastaba inay dhacdo kadib ra'iisul wasaarihii xilka laga qaaday oo isaga si geesa looga eedeeyay dhanka dowladda inay ka socon lahayd in ay dhacdo doorashada. haddaan nahay dadkii dhashii lahay dalkan difaaciyo dagaal diyaar baanu nahay waxaanu duubanahay danteen labada jirkiyo bogtaan daweyn lahaa bogtaan daweyn lahaa dumarkiyo caruurta danyartiyo miskiinta ma dilo anigu ma dilo walaalahay ma dilo. Daayarta Muqdisho ayaad moodaa in aanayba doonayn in eedaha laisu wareejiyo ama midba midka kale oo eedda dusha ka saare ee ay doonayaan nabad iyo naruuro inay ku noolaadaan. Balse midba midka kale wuxuu ku eedeynayaa inuu dhibaatada qayb weyn ka yahay. Madaxweynaha ayaa wuxuu ku eedeynayaa musharaxiinta mucaaradka in ay doorashada ka qabsoomi laadahay. Dhanka musharaxiinta mucaaradka ayaa madaxweynaha waxay ku eedeynayaan inuu qori adeegsanaya uuna yahay dictator aanan doonayn dalkan in si nabad ah ay doorasho ugu dhacdo. Dhankooda ayaa waxay leeyihiin mudanayaashii ka horreeyay ee kursigan soo maray ayaa si nabad ah ku wareejiyay, balse isagu ma doonayo ayay ku eedeynayaan madaxweynaha dhankiisa. Si kastaba ha noqotee, xaqiiqada ayaa waxay tahay in dhibaatadu ay qaybta weyn ay ka qaadan doonaan, dushana ay u ridan doonaan kuwa kursiga doonaya iyo kuwa jooga dhanka wasiirada iyo madaxweynaha iyo musharaxiinta mucaaradkaba dhammaantood. Baaqyada dalalka caalamka ay soo dirayaan ayaa waxay ku baaqayaan in doorasho la qabto sifa looga baaqsado dagaal mar kale ka dhaca mid la mid ah 1991. kuwaan diirnaxaydin ee aan damaq lahayn ayaa la dirir oo aan diidanay dagaalada dhulkayga anoon ku daabin calan cawaale on dulbaban dangiigsan maya oo gumaysi dooni mayo. Doorashadii la filayay ee madaxweynaha uu ballan qaaday ee qof iyo cod ahayd ayaa mar kale aanan qabsoomin, sida la rajaynayana waxaa qabsoomi doonto doorasho tii hore la mid ah oo baarlamaanka ay soo xili doonaan odayaasha deegaanka. Si kastaba ha noqotee, in aanan doorasho la qabanin ayaa waxaa dhaanto in mar doorasho la qabto kursigana loogu kala wareego ama uu soo laabto madaxweynaha hadda joogo.
wixii warar dheeraad ah halkan ayaad nagala socon doontaan taariikhda muqdisho ku saabsan fadlan nagu xirnaada